waxa uu ka mid yahay buundooyinkaysan macquulka ahayn ee isku xirta Denmark iyo Sweden. Waa mid ka mid ah buundooyinka ay wada maraan tareemada iyo gawaarida. Waa mid lagu tilmaamo kuwa u qurxan caalamka. Waxaan maanta muuqaalkeena ku soo qaadan doonaa buundada lagu yeero Oresund. Magaceyguna waa Cabbaas Mustaf, halkanina waa Rumaan Media. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Inaad like saarto videogana wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo. Waa buundada Oresund ee isku xirta Denmark iyo Sweden. Muddo 5 sano oo dhismaheedu socday sanadii 1999 baa dhammaystiray. Waa nooc ka mid ah buundayaasha aan macquulka ahayn ee aadamuhu hindisay abid. Waxaana lagu naanaysaa buundada aan macquulka ahayn. Waxay u qaybsantaa buundada badda dusheeda marta iyo midda badda hoosteeda marta underwater tunnel. Buundada ayaa ah mid tareemada iyo baabuurta labaduba maraan. Qaybta badda dul marta baabuurta ayaa maraan halka qaybta hoos marta ay maraan tareemadu. Qaybta badda hoos marta way isfeer socdaan baabuurta iyo tareemadaba. Labada dal ayaa si wadajir ah u dhisay. Qaybta Sweden waa buunda badda dul marta, halka qaybta Denmark ay tahay tunnel ama wado badda hoos marta. Waxay ku kulmaan bartamaha marinka biyoodka labada dal ee u dhaxeeya oo ay ka sameeyeen jasiirad yar oo qaybta tunnelka ah iyo qaybta buundada ay isku xirta. Sababtay Denmark qaybteeda badda hoosta u dhigtay oo u jeexday oo wadooyin u marisay ayaa ahayd laba sababood oo jirtay. Mid waxay ahayd haddii sida qaybta Sweden buundada dheer laga dhigo oo caqabada ku noqonaya diyaaradaha oo ka degaya madaarka Copenhagen oo aagaas ku yaala. Waxaana laga baqay in diyaaraduhu ku dhacaan tiirarka buundada. Si diyaaradaha dhibka soo gaaraya loona baaqsado ayaa la isku dayay in buundada la gaabiyo dhismo ahaan. Haddana waxaa la ogaaday inay caqabad ku tahay maraakiibta ganacsiga oo meesha maraya. Sababtaas awgeed baa loo doortay in diiwaanka Denmark badda hoosteeda loo jeexo oo lagu dhigo waddo badda hoosteeda marta. Waxaa ku baxay dhismaha waddadaas 3 bilyan lacag kor u dhaafaysa. Waxayna labadaas dal ka saaciday in dhaqaalahaan iyo bulsho ahaanba kobcaan. Yurub maanta baabuurta ay ka soo qaataan Norway ayaa ku keeni kara xeebaha koonfureed ee Yurub oo Talyaaniga ah. Waa qaarad yar oo dadku ku nool dhan walba ay isku furan yihiin iyagoo dul maraya badda hoosteeda iyo dusheedaba.